بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله تعالى ولا ليال محاضرة كذا وحوي أحكام تقصيص الدمرك جوني ذا كوا مركا دي اللي هذا السدا waxay noqon in si toos ah marka loo hadlo oo laga hadlo ahkaamta haweenku goonida u leeyihiin. waxa kamid ah haweenka dhiiga ku dhaca oo xaydka la yiraahdo, waxa kamid oo kale dhiig kale oo dumarka ku dhaca oo la yiraahdo istixaada, waxa kamid ah dhiig kale oo dumarka ku dhaca oo la yiraahdo nifaas. saddexda dhiig iyo ahkaamta ka ratibanta ayaa rabnaa in sha Allah ta'ala inaan ka hadalno hadii Allah idmo. si toosa waxaan waligu uga hadlayaa ahkaamta nifaaska oo dhiiga dhalmada iyo ahkaamta istixaadada. marka qaybta horena in sha Allah ta'ala qaybta kale oo ah xaydka sheekh aadan ayaa hadii Allah idmo ka hadli doona. sida ogsoontiin walaalayaal dhiigan oo ku dhaca dumarka oo saddexdooda markii la isku daraba xaydku uu yahay midka ugu muhiimsan. waa ilaahi subhanahu wa ta'ala xikmad ilaahi uu dumarka wuxuu ku keenay weeye. wax la oran karo ma aha muxuu raggu u xaydi waayay dumarkuna uga yimaadaa. allah baa wuxuu leeyahay wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar. marka waa dhiig ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku keenay dumarka uu ku keenay weeyaan. sidaas darteed gabadhu markii uu dhiigaasi ka yimaado dhiiga ayaa nijaas iyadu nijaas ma aha. arrintaana waxaan kaga duwanahay al-yahuud wa nasara. nimanka yahuudda la yiraahdo gabdhuhu marka xaydku ka yimaado gabadha nijaas bay ula dhaqmaan, waxba lama cunaan, lama seexdaan, lama taaban karo, waa laga fogaadaa. intaas oo dhan bay sameeyaan. nimanka la yiraahdo nasaaradana waan uga duwanahay. iyaguna waxay sameeyaan gabadhu markay dhiig leedahay wax walba oo markii hore ay sameyn jireen way la sameeyaan. muslimiintu islaamku labadaas u dhaxeeya waa wasad diin wasad weeyo labadooda u dhaxeeyaayo gabadha cunto waa la cunaa, waa la seexan karaa, waa la joogayaa. laakiin rasuulku wuxuu yiri isna'u kull shay'in illa nikah. kaliya yaa nikahaas loola jeedo jimaac wax la yiraahdo kaliya yuusan dhicin oo yaan la soo galmoonin, laakiin inta wixii ka soo haray oo dhan ayaa la isla sameyn karaayo labada qof ay isla sameyn karaan. sida ogsoontiin xaydku marka wuxuu leeyahay inta ugu badan ilaan ahkaamta istixaadada haddaan rabno inaan gallo oo rabo inaan taariifiyo. xaydku horta waa dhiig ka soconaya gabdhaha 6 beri ama 7 maalmood, labadaas mid ka soconaya. طيب haddii sidaas la yiraahdo waxa soo haray marka ahkaam baa ka ratimaysa. gabadhu haday la timaado dhiigaasi ka yimaado salaadii ma tukan karto. rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum buu xadiis bukhari iyo muslim oo wariyay. haddii gabadhu ka yimaado soomna ma la imanayso, salaadna lama imanayso. طيب soomkana waa sidoo kale lama iman karto oo kaas daliil u ah xikmada culimadu. laakiin soomka way soo qadayn salaadana qadayn mayso. maxaa jira salaadii gabadha waxay noqon 6 bari haday fadhiday 135 salaadood ayaa markaa ka tagaya. haddii ragcadaheeda la isku tiriyana 102 ragcadood bay noqonayaan. 7 bari hadduu dhiigu ku yaalana 110 salaad waxay noqon 35 salaadood ayay misgaraynaysaa. waxayna noqon 119 ragcadood iyaa dhaaftay gabadha. marka haddii la yiraahdo ku soo celi oo soo qadeena umurtaasi gabadha way ku adkaan kartaa. sidaas darteed soomku laakiin isoo saalan yahay 7 maalmood way soo qadeyn karaa, wax mashaakil ma leh. sidaas ay culimadu leeyihiin xikmada ku jirta. sidoo kale gabadha jimaac ma dhici karo oo iyadana waxa weeye xaaidada iyo nufasada midkoodna gabadhu markay dhasho
iyo markay dhiigan leedahay xaydka ah midna jimaac iyo galmo labadoodiba ma dhici karaan tawaafkiina waa sidoo kale oo labadooduba xajka haddii la tago acmaasha kale way samayn karaan laakiin tawaafkii ma samayn karaan taabashadii musxafka iyo qur'aanka ayaa la mida oo iyadana calaa khilaafin fiihi ma taaban karaan laakiin qur'aanka waa aqrin karaan sidoo kale talaaqii oo kale gabadha haddii xilligaa la furo talaaqa bidci ayaa la yidhaahdaa marka waxaa fiican xilli daahira gabadha haddiiba uu dhacaysa arrintaasi inuu dhaco sidoo kale masaajidka iyo joogitaankiisa calaa khilaafin fiihi khilaaf baa isagana ku jira culimada qaar waxay leeyihiin way joogi kartaa gabadho qolyana waxay leeyihiin ma joogi karto gadaal baan ka jasmin doonaa haddii alla idmo axkaamta marka oo qusaysa waxay noqonaysaa u bannaan waxyaabo u bannaan baa jira gabadha xaydada iyo nufasada gabadha dhiigga dhalmada leh iyo gabadha xaydka ku jirta labadaba waxyaabo u bannaan ayaa jira waxaa ka mid a maalan in lala mubaasharoodo oo lala seexdo waa suuragal laakiin galmada oo keliya unbaa la iska ilaalinayaa gabadha jidhkeeda oo kale oo dhan waa daahir wey nijaas ma aha sida yahuuddu ay qabaan baan khilaafayna cuntada ayaa la mida gabadha waxna waa lala cuni karaa waxna waa lala cabi karaa caaisha waxay leedahay rasuulku biyaha intuu cabeeya caanaha yaa weliba meesha afka uu ka saaro ayuu anigana ii dhiibi jiro markaasaan afka anna ka saari jiray marka taasi waxay tusinaysaa inayna gabadhu nijaas aynan ahayn waxaa kaloo suuragal ah ee gabadha xaydada iyo gabadha nufasada dhashay labaduba meesha lagu tukanayo inay iyaguna ay u soo baxaan waxaa kala mid ahoo kale cibaadaadka oo dhan iyo wixii kale adkaartii iyo howlihii kale way samaynayaan qur-aankiina xitaa gabadhu way aqrin kartaa xilligaas oo kale korka waa ka aqrin kartaa ayib waxaan insha allahu tacaala marka mustaxaadada ayaan rabaa anigu inaan si gooniya intaas muqaddam ahaan gabadha mustaxaadada ah mustaxaada maxaa la yidhahdaa waa su-aal mustaxaadadu waa dhiig gabadha ka yimaada waktigii caadadeeda ahayd wakti aan hayn buuna ka yimaadaa yani waxaan rabnaa inaan ogaano sidaa haddaan nidhaahno waa dhiig uu keeno jiro ayuu ku yimaadaa haddaan si kale usii dhigo waa dhiigga dumarka aan ka go-aynin oo suuragal ah mararka qaarkood gabdhaha qaar markii xaydkoodii ay dhaafaan inay tidhaahdo gabadhu intaasoo maalmood oo ka dambaysa bay uga socdaa maalan 6 maalmood buu kaa socon jiray dhiiggaaga caadiga ama 7 maalmood waxaad arkay 10 beri adoo sii mariyo weli dhiiggii leh waxaad arkay 15 beri marka meeqay lagu kala xadayn doona waan sheegaynaa 20 beri buu dhiiggii kugu gaadhay marka dhiiggaasi muxuu yahay 20 beri ba hadduu dhaafo 15 beri hadduu soo dhaafo gabadhu siday noqonaysaa mustaxaadadaas waxa weeye imkithii rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam caaisha radia allahu canha ayaa waxay leedahay gabadh ummu xabiiba radia allahu canha baa rasuulka u soo sheegatay oo tidhi yaa rasuulallaahiyow ee dhiig baasaa iga yimaada oo badan faqaala laha imkithii qadra maa kaanat taxbisuka xaydatuki uma iqtasilii haddii marka gabadhu siday cibaadadii u samaynaysaa wuxuu ku yidhi rasuul gabadhan markay u timi waxay tidhi yaa rasuulallaahiyow dhiig baa iga imaanaya dhiiggaasina xilligaygii wuu dhaafayaa maxaan sameeyaa wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaad iska joogtaa intii xaydku uu ku hayn jiray oo kale oo meequu ahaa ama 7 ama 6 maalan adigaa garanaya intaa markaad joogto waxaad samaysaa iska qabayso